daawadayaal qaybtana waa qaybihii kale ee wararkeennii ugu dambeeyay dunida warbixinaya dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dalka Mareykanka xildhibaanadiisa iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta siyaasiyiinta waaweyn ayaa sii wada inay ku wiirsadaan madaxweynaha dalka si Iran ay leeyahay ayadoo tan ay dad badan ay ku tilmaameen inay tahay qalbi xumo iyo waliba nacayb aad u weyn oo Iran ay u qabaan. Rick Scott waa mid ka mid ah xubnaha sarsare ee xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka aqalka Senatka ugu jira waxa uu sheegay in haddii Ibrahim Raisi hadda dhimashadiisa la soo sheego in gabi ahaanba uu adduunku sidan kasi ammaan badnaanayo wuxuu yiri gabi ahaanba ma jiro qof asaga jeclaa ama mid xushmeynaya waxaana jirin ayuu yiri qof u xiisi doona gabi ahaanba ayuu yiri Scott oo ku tilmaamay in gabi ahaanba haddii uu maanta baxo gabi ahaanba ay dadka reer Iran ay heli doonaan ayuu yiri fursad kale oo ay dalkooda dib ugu soo qaataan ogana soo qaadaan ayuu yiri uga soo ceshadaan ayuu yiri nidaamka dilaaga ah ee sidoo kalena dictatoriga oo soo dalka u dhigay hase yeeshee dad badan oo comments ka bixiyay ayaa ku tilmaamay in hadallada noocan oo kale ah ay kaliya muujinayaan cadaawad iyo fool xumo sidoo kalena ay kaliya muujinayso in dalka Mareykanka xubno badan oo jooga ay yihiin kuwo markaasi aan kala aqoonin bini'aadanimada iyo sidoo kale qadiyada ku aadan ay yiraahdeen colaadda siyaasadeed ayna buuxisay kaliya nacayb aad u badan oo ballaaran oo ugu dambeynta ku dhameed doonta ay yiraahdeen in dalka Mareykanka dadkiisa laga naco wadamada caalamka islaamka gaar ahaan Iran tusaalahaan qofka Iraaniga ah ee xataa isagu ka soo horjeeda madaxweynaha wadankaasi Iran Raisi marka uu qoraalka ninkan shisheeyaha isa u hadlayo oo arko u qaadan maayo mid siyaasadeed wuxuu qaadanayaa mid shakhsiyadeed ayuu yiri mid kamid ah dadku تربيلك ورك وعلى نعم درس الدوشة نقيها بدن عدايما ديرada ayaa loo helay in Mareykanku uu ku lug leeyahay dambiyada dagaal ee ka dhacaya Falastiin kadib markii magaalada Khan Yunis laga soo saaray hubka haraadiga Israa'iil ay isticmaashay taasoo badankooda ay noqotay hub lagu soo sameeyay dalka Mareykanka warbixin ay soo saartay hay'adaha maxalliga ayaa sheegay inay arkeen hub aad u ballaaran sidoo kale wakaalada wararka ee dalka Turkiga Anadolu ayaa goorsi walisay sheegtay inay tiimkeeda dhinaca sawir qaadayaasha ee farshaxanka ay u dirtay hubkaas oo lagu tilmaamay in uu yahay mid aad u weyn xogayaha qaramada midoobay u qaabil arrimaha baaritaanada tacadiyada Franska Albanese ayaa cambaaraysay Washington kuna tilmaantay in hubkeeda loo isticmaalay waxay ugu yeedhay markaasi dhibaataynta dadka iyo sidoo kale waxa ay ku tilmaantay markaasi in dadka si aad u fool xun loogu gumaaday hubkii iyo bambooyinka ay soo saartay dowladda madaxweyne Joe Biden ayaa ugu baaqday inay si dhaqso badan wax ka qabato ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran ayaa waxa ay la sheegay in ayaguna ay gobolka East Azerbaijan la yiraahdo wadanka Iran ay awoodiisa oo dhan ay la wareegeen kadib markii la sheegay in baaritaano hore lagu bilaabayo sida diyaaradda madaxweynaha loo waayay iyo sida madaxweynaha iyo kooxdiisa ilaa hadda ay u noqotay kuwa aan la arki karin meel ay ku dameeyaan majaan iyo cirib ay dhigaan dhinaca kale wararku waxay sheegayaan in xaaladdu ay marmar ka dameysa ay u egtahay mid si darsanaysa ama si adkaanaysa ayadoo dadka qaarkood ay sheegaan xaaladda in cimiladu ay ka dhigtay mid aan suuragal ahayn dadka qaarkood waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba waxa ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi ay tahay mid aan la filaynin marka loo eego ayaa la sida loo waayay dadka qaarkood waxay yiraahdeen shilku waa suuragal inuu mar kastaba dhaco ama cid kastaba ku dhaco laakiin se arinta la isla yaabay ayaa in diyaaradda ilaa hadda meesha ay exactly taalo la leeyahay laakiin se ay sheegayaan in kaliya telefoonno signalskooda furan yahay la hayo wadamada qaarkood ayaa iyaguna soo gaarsiiyay gargaar degdeg dalalka Pakistan iyo Hindiya ayaa hadda waxay soo direen wufuud culus Saudi Arabia ayaa iyaduna soo dirtay koox farta ka xidhan sida ay ku dhawaaqday sidoo kalena waxaa la sheegay in ay kooxda European-ku ayaguna ay stareen isla markaan hadda ay daareen qalabka tiknoolajiyada ugu casrisan ee dhinaca satellite-ka kuwaas oo raacaya birqabatada ama waxa loo yaqaan magnet detectorska oo meel kasto birtaalo aagaas ayay soo qabanaysaa ama ay soo nuugaysaa wasi hadalka u dhigay hadeerto waa la isku wada raacsan yahay isla markaana waa la isku markaasi dabcan laguma kala beersanaa in diyaaradda madaxweynuhu ay shil gashay arintaasi waa la wada cadeynaya isla markaana waxa leeyahay diyaaradda madaxweynuhu shil ayay gashay shilka markay gashay laakiin waxa dhacay kadib baan la hubin shilkaasi dadka qaarkood waxay ku sheegayaan in uu yahay shil aan major ahayn macnaha shil laga badbaaday waayo laba qof ayaa telefoon lagu hadlay oo saarnaa markaas diyaaradda si loo heli waayay waxa loo heli waayay exactly dadka meesha yaalaan telefoonadii miyaa damay taas tafasiileeda lagama bixinin laakiin GPS la raacay wali waxay sheegeen inay hawlgalku ay socdaan ilaa laakiin waxaa la sheegay in Iranian officials ay sheegeen inay goorsi horeysay ay dictate gareeyeen oo qabteen exactly waxay ugu yeedheen locationka diyaaradda ku dhacday oo ay garteen markaas hilaada meesha ay xigto maadaama ay signal heleen laakiin taas macnaheedu
ma aha in diyaaradii la helay taas macnaheedu ilaa hadeerta diyaaradii lama hayo muuqaal madaxweynaha laga duubay markuu diyaaradda saarnaa dhammaantood waxay muujinaysay ayaa la yidhi in diyaaradda ay marxalad caadi ay ku jirtay isla markaana ay dadku si caadi ay diyaaradda ay u saarnaayeen inkastoo muuqaalkaasi dadka qaarkood ku tilmaamay inay tahay ka hor madaxweynuhu intuusan ka qaybgelin furitaanka xafladda uu kasoo noqdayna aan laga haynin video rasmiya oo internetka iyo wax walba ay markaasi halaabeen dhinaca kale sida ay wararku sheegayaan dalka nature iyo mareykanka ayaa ugu dambeyn isku raacay in la dhamaystiro saaritaanka ciidamada mareykanka oo noqon doona ciidamadii ugu dambeeyay iyaga kuwa Francisco inay kaga baxaan wadamo dhowr wadamada Mali Burkina Faso iyo wadanka Niger ayaa dalka reer galbeedka laad kaga saaray wadamadooda waxayna sheegeen inay gabi ahaanba ay ka laadayaan waxay ugu yeereen wadamo dana kale ku raacan laakiin mareykanka ayaa codsaday in si markaasi salmi ah ay uga baxaan wadanka lana siiyo banaanka daadgureynta ciidankoodu maadaama ay 1500 askari yihiin oo lagu daadguranayo diyaarad ilaa iyo 15 September taasoo ay sheegeen in ay intaas la saari doono waxaa la sheegay in dheega ay ugu soo qabteen ciidamada dalka Ruushka oo halkaas la soo dhoobay kuwaas oo iyagu la wareegay ayaa la gabi ahaanba gacan saarka dhinaca kalena dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay dhacdooyinka ka dhacaya jasiiradda New Caledonia inay ka dambeeyaan dalalka ay yiraahdeen Azerbaijan iyo Turkiga waxay sheegtay dawladda dalkaasi raadiyo u hadlay oo ka hadlay mid ka mid مسؤولينته ولي يوروب 1 in qalalaasaha ka dhacaya New Caledonia jasiiradda markaasi ah heestaan gumeysiga ku jirta ee ku taala Pacific inay ka dambeeyeen ay yiraahdeen kooxaha goonigosadka ay halkaasi inay dhaqaaleeyeen Ankara iyo Baku oo ay ku tilmaameen inay qarashka ay bixiyeen xildhibaan iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dalkaas ayaa shiiday gabi ahaanba waxaanu helay ay yiraahdeen cadeymaha faraha oo ay heleen waaxda loo yaqaan French Intelligence Agency DGSI hay'adda warwareynta ee dalkaasi France inay gacanta ku dhigtay in Baku iyo Ankara iska kaashadeen qorshaha kocdoonka ay wadaan dadka goonigosadka cadeyn kuma keenin dawladda dalkaas Turkiga kuma jawaabin laakiin Faransiiska iyo Turkiga ayaa goortii horeysay isku dhacay dhowr meeloodna dawladda dalka Turkiga ayaa ka sifaysay oo kamid tahay dalka Libya haddaba waa maxay New Caledonia waa jasiirad ku taala Pacific waa dhulkii gubeystuhu ay waa hore qabsadeen dabeedna aan wali xornimada qaadan boqolkiiba 40 dadka ku dhaqan asaliga ayaa loo yaqaan halka ay dadka kale la dulgeeyay oo yihiin dad cadaan oo gubeystaan Faransiis ninka madaxda ka ah maamulkaasi oo la yiraahdo Le Franc oo isagu ah qofka loo yaqaano qofka maxkamada haysta commissionerka waxa la Louis Le France ayaa la yiraahdaa territory high commissioner qofka dhulka madaxda ka ah waxa weeye waa gudoomiyaha meesha haysta ayaa waxa uu sheegay in xaaladda la xakameeyay kadib markii uu sheegay in wadooyinkii la baneeyay ilaa 60 ayuu yiri markaasi goobood oo ah goobo ay ka dhigteen jidgooyooyin ay dhigeen ayaan baneynay oo ku dhisiman ayuu ilaa 60 kilomitir wuxuu sheegay in dhimasho halkaas ka dhacday sidoo kale dhaawac dadka bulshada asaliga indigenous baa la yiraahdaa Kanakak baa magacooda la kala yiraahdaa qabiilka indigenous waa dadka asaliga deegaanka u dhashay iskale asal oo leeyahay Kanak ayaa waxay sheegeen in aysan dooneynin in Faransiiska uu wax ka bedelo sharciyada halkaasi ayaa siinaysa aqlabiyada dadka cadaanka ee wadanka yimid taasoo ay ku tilmaameen inay tahay tani Bob iyo qaadash dalka DRC Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo Soomaali badan ay bariga gudumeysan maaliyad xoogan ku leedahay isku day afgambi oo dhicisoobay ayaa ka dhacay sida ay wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ee Kinshasa ayaa waxay sheegayaan in urur aan la garanaynin iyo koox militariga ka tirsan ay kacdoon sameysay sida ay wararku sheegayaan xarunta Kinshasa ayaa la sheegay in aaga madaxweynuhu uu degan yahay ee leedahay Fatal Kameshi ay ka dhaceen isku day weerar aad u xoogan iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka The National Assembly for DRC ayaa wararku waxay sheegayaan inay ka hortagtay arrintaasi afayeen u hadlay madaxtooyada oo leedahay Michael Moto Muhima ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay in madaxweynaha iyo qoyskiisa iyo aaga nabdoon ee familka intuba ay nabad qabaan ayuu barta Twitterka markii dambe ku soo qoray DRC militarigeeda ayaa gursigiisa waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay dadkii watay General Sivini Ikenchi ayaa warfadiyeenada u sheegay in 3 qof la dilay oo isku dayga waday kuwaas oo u dhashay wadanka kana tirsan waaxda Congress Defense and Security Forces ayuu yiri iyo sidoo kale wuxuu xubno kale gacanta lagu dhigay wuxuu sheegay in xaaladu hadeerto ay degan tahay isla markaana gacanta lagu hayo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa qalalaasay ka jira qaybo kamid ah dalkaasi waana dalka ugu badan ee qaaradda Afrika ee dahabka laga soo qodo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waayadii ugu dambeeyay oo dalkaasi sabada dhiganayay kuwaas oo dhaqaale aad xoogan ka sameeyay gaar ahaan ganacsiyada kala duwan ee kamid ah shidaalka iyo sidoo kale ganacsiyo kale oo teltelka wararka wacala dhinaca dibadda qiimaha badan madaxweynaha Iran wali lama hayo
mar walba waa idiin soo dhexgelinaya warkaasi ilaa haddeerto madaxweynihii raqiyo ruuxtoona lama hayan hadlan wararkeena dambe ese haddii alla idmo waad ku ogaan doontaan harba daqiiqad kasta wixii kasoo kordha waxaad u baahan tahay inaad mar walba aad refresh tiraahdo oo aad taabato wararkeena kuna soo noqnoqoto si aad ula socoto wararka ugu dambeeya iyo caalaha dabcan dhanka kale fiiriyo dabashana qiimaha leh wararka caalaha dhinaca dunaasiyada kale ee dunida ee ka imaanaya mid iyo labo qiso la yaab kale ee adduunka xawaya bariga ugu dambeeya waxaa soo badanaya dhalinyarada loo yaqaano inay yihiin genius dhalinyaro markaasi maskaxdooda aad iyo aad u fiican tahay gabadh yar oo la yiraahdo markaasi Dorothy Jean ayaa haatan waxa ay noqotay qofkii ugu da'da yaraa ee qaata shahaadada PhD markii ay ahayd 14 jir Dorothy Jean Tallman oo madow Mareykan ah waxay haysatay shahaadada bachelor ama shahaadada koobaad ee jaamacadda iyada oo sidoo kalena isla 14 jirkeedii ku dhameysay darajada labaad ee jaamacadda master's degree loo yaqaan iyada oo intan u sameysay maanta inkastoo la sheegay in cilada ku noqotay mar COVID-19 kii oo ay ahayd markay 15 jirtayna waxba qabato maanta in hadlana waa 17 jir waxayna jaamacadda Chicago ay ku dhameysay shahaadada cilmiga ugu sareeya ee PhD iyadoo 17 jir ah ayay noqotay markaasi inay maanta magaceedu uu isku bedelay Dr. Dorothy Jean Tallman waxa ay masiibo ku qabtaa dhinaca aqoonta oo gabi ahaanba ay aad u sareyso jaamacadda PhD-da ay u dooratay waa jaamacadda Arizona State University College ee loo yaqaano of Health Solution Convocation sideed bisha ayay dhamaysay jaamacadda isla markaana waxa ay gabi ahaanba ay gabadha yar ay sameysay aragtiyo la yaab leh iyadoo la sheegay in ay waxyaalaha ku qaata dadka casharada dadka bisha ku qaata ayada inuu ku qaadanayo 2-3 saacadood inay ka shaqeyso sidoo kalena waxa lagu tilmaamay in la ogaaday inay gabadhan yar ee dadka maskaxdooda dhan ka duwan tahay markii ay 7 jir ay gaadhay ee iskuulka fasalka labaad ay u gudbi lahayd ayay waxay u gudubtay fasalka shanaad taasi waxa lagu tilmaamay hooyadeed mid ay ku aragtay in gabadheedu maskaxdeedu aysan caadi ahayn haatan waa mid kamid ah cajibaadka weyn ee ka dhacay dunida iyo dalalka caalamka Jack Sullivan ninka kamid ah ragga taliyaasha waa madaxweynaha Mareykanka ayaa isku dayay in uu markii ugu dambeysay ku qanciyo nidaamka sanuuniyada inay qaataan hanaanka loo yaqaan xabad joojinta iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka uu sheegay shacabka in qoyskiisa ku kacay iyadoo dalka Mareykanka ay ka jirto markaas mudaharaado aad u waaweyn kacdoon shacbiyana ayaa Jack Sullivan waxa la sheegay inuu u sheegay Netanyahu iyo kooxdiisa inay u baahan yihiin xabad joojin rasmi ah la saxiixo laakiin waxa la sheegay bedelka in Netanyahu iyo kooxdiisa ay diyaarsadeen iyaguna qodbado iyo wilgooyin ku aadan wax loogu yeeray markaasi balay inay sii wadaan hawlgalka Rafah hase yeeshee dadka ayaa ku tilmaamay in hadii safarkan uu dhiciso madaxweynaha Mareykanka ay ku adkaa doonto inuu sii wado taageerada Israa'iil oo uu ku khasban yahay markaasi inuu joojiyo oo qorshayaal kale hor u qaado Philippines madaxweynahoodu wuxuu ku dhawaaqay in istifaaci doonaan isagoo carabaabin wadanka ay ku duulayaan ayuu sheegay in Malina lagu khasbayo inay dagaal gasho uma soo hadal qaadin wadanka Shiinaha laakiinse waxa la aaminsan yahay in warku ahaa feera iga garo oo la aaminsan yahay inuu ula jeeday dalkaasi wuxuu sheegay in dhibaato aad u xooggan ay la kulmayaan kalluumaysatadoodu cishiimaysi aad u xooggan iyo degdeg ba'anna lagu hayo wuxuu intaas ku daray inay sii wadayaan qorshayaasha dalka iyagu waxa uu ku shaqeeyaa sharciga kala damayn sidoo kale waxa lagu shaqeeyaa nafarnimo iyo istifaacid si adraadeed ka maarmi meeno inaanu iska difaacno cadow kasta oo noo yimaada ayuu wararka wacalaha dhinaca dunaasiyada washana qiimaha badan gaan dunida oo dhan ayaan idii hayaa marka ka dameysa iyo xogo kala duwan ee haatan Slovakia waxa la leeyahay dilalka madaxda iyo shaqoolada soo badanaya markan oo kale waa iba furka dagaalka qabow iyo bartamaha laga jiro waxa la yiri markasta oo aragto madaxweyne la kawinayo mid kale oo kaf laga siinayo mid kale oo la dhibaateenayo inta badan waxa la yiri waxay taasi timaadaa baa la yiri wax loogu yeeray marka ay dhibaatooyin aad iyo aad u waaweyn ay adduunka ku soo jiijireen ra'iisul wasaarahani waxa uu iba furay hadaba dhacdooyinka noocaas oo kale ah haatan dawladda ayaa ku dhawaaqday in qaliinkii 2 saacad badan qaatay kadib lagu guuleystay waxayna sheegeen in hadeerta uu ka baxay xaaladda halista ee markaasi loo yaqaano the life threaten waa shay ama life in danger wax loo yaqaano waxay sheegeen in hadeerta uu soo kabtay isla markaana u ladan yahay mid kamid ah dadka taageerayaashiisa ah oo cusbitaalka hortiisa la taagna calanka dalka ayaa wuxuu dhageysanayay markii uu hadlayay mid kamid ah ragga aadka ay saaxiibada u yihiin sidoo kale ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Robert Klinak oo ka soo noqday meesha xaaladda lagu dabiibayo wuxuu yiri waxaan idin sheegayaa ninkani waa nin adkaysi badan isla markaana uu ka baxay in uu noloshiisu ay lunto laakiinse waxa uu wali ku jira xaalad adag sidaad raadeed wuxuu wali u baahan yahay taxadar ballaaran ayuu Klinak Fico waxa uu weeyay ayuu nin markaas haliyay ah
oo ah wadani wadankiisana ka hormariyay danaha dalalka reer galbeedka iyo dalalka shisheeye ayuu markaas u door xulay wadamada shisheeye oo dhan ayuu danihooda halkan iska dhigay dabeedna wuxuu doortay in wadankiisa qaato qof walbana uu dhimanaya ayuu yidhi qof aan dhimanayn horta maba jiraba sidaa daraadeed wuxuu yidhi Maraykan wuxuu u taagan yahay taasi hadeerta uu ka soo baxay arrintaasi waxaana hadeerta xaaladdiisa aan dhihi karnaa waa mid degan kuna socota xaaladda ka soo reynta amaanaal